بسم الله الرحمن الرحيم. كسو دوادا معدك اسبين. maanta waxaan qaadanaynaa hadii alla idmo oo 10 muhiim ah oo ina wax badan aan ka faa'iidi doono aan malaynayo fadlan asxaabta nagu xiran noo gaarsiiya asxaabta kale asxaabtiina ah si aan dad badan u helno insha Allah qofkan uu cusub insha Allah waxaan jecelnahay inuu subscribe noo saaro oo 10 free ah oo qofku uu ka helayo xog aad u fara badan oo ka heli doono loogu tala galay waliba dadka ka shaqeeya ganacsiga yani wuxuu noqon karaa qof manager ah oo shirkad maamula ka ah wuxuu noqon karaa sales manager qof oo qaybta sales ka kaliya maamula wuxuu noqon karaa supervisor wuxuu noqon karaa qof yani dukaan ama qayb bakaaraha kale ka shaqeeya ama laga rabo inuu sales si fiican oo u soo saaro dadkaas oo dhan waa ka faa'iidi karaan maanta waxa qaadanaynaa marka ugu muhiimsan waajibaadka laga rabo responsibilities-ka oo sales manager laga rabo yani qofka sales manager ka ah yani maxaa laga rabaa okay inuu hormariyo iibka shirkadda laga rabaa si kor loogu qaado dakhliga shirkadda yani iibka shirkadda waxa ugu badan oo bahalkii ahaa shirkadda laga rabo waxa waaye iib waa yani meel kasta oo la furo irid kasta oo la furo hadafka laga leeyahay waxa waaye inuu ka soo baxo wax la yiraahdo dakhli inuu ka soo baxo dakhli hadduu iska soo baxaynin waxa waaye sales lama dhihi karo ama iib lama dhihi karo waa in ay ka soo baxdaa dakhli wax la yiraahdo dakhligaasi hadhow wuxuu u kala bixi doonaa expense iyo revenue u kala bixi doonaa saalaan $100 ku soo gashay ama shirkadaadu iibisay $100 $10 waxa laga yaabaa alaabtii aad si iibisay inaad ka soo bixisay $10 waxa laga yaabaa qofka ka ahaa dukaan ka shaqeynay $10 waxa laga yaabaa inay koronto iyo kiro iyo biyo waxaas u baxday markaas $30 marka ka jirto $100 $70 ayaa wax ku tahay faa'iido marka sidaas la rabaa iibka marka intuu ka imaanaya wuxuu ka imaanayaa alaab soo gaday ama service soo iibsatay oo aad rabto inaad si iibiso markaasna waxa ka imaan doona wax la yiraahdo dakhli marka sales manager ka qofka ah waa inuu hormariyaa qasab waa horumarin fiican inuu ku sameeyaa iibka shirkadda sababtoo ah haddaan waxba la iibin dakhli la heli maayo waa muhiim waxa kale oo jira inuu qorsheeyo jaantuska iibka yani targetka iibka ama sida shaxda oo iibkaas loo gaarayo targetka sida loo gaarayo jaantuskaas waa inuu diyaariyaa waa inuu dejiyo ama qaybiyo iibka shirkadda yani daadajiyo macnaha iibka shirkadda adiga kaliya kuma koobnee ragga ka hooseeyo oo shaqaas ka shaqeynaya hadduu rabo qof oo alaabta banaanka u dhiibto sida agent oo kale ha ahaado hadduu rabo meel kale oo branch kale oo leedahiin ha ahaado yani inaad daadajisaa laga daadajiso oo yani u qaybso shirkadda oo tiraahdo salahan xarunta Hiblaayo 20% laga rabaa xarunta bakaaraha ku taalo 70% laga rabaa xarunta dabka ku taala 10% laga rabaa xarunta ku taala Hargeysa 5% laga rabaa inaad sidaas u kala qaybiso ayaa laga rabaa yani waa muhiim waa okay diyaarinta warbixin yani warbixin muhiim waa aad muhiim u tahay sida qofka hadduu soo warbixin oo saheeynin haddaan waxba la warbixin wax soconaya ma laha waa in warbixin fiican laga dhiibasho bahalka saleska sidoo ahaa intaas ay halkaas wuxuu noqon karaa maalinle wuxuu noqon karaa isbuucle wuxuu noqon karaa bille wuxuu noqon karaa sanadle wuxuu noqon karaa 3 biloodle reportka yani bal wixii si wax loo iibiyay alaabta midda gadmayso midda aan gadmaynin bal aan kala aragno report loo baahan yahay warbixin loo baahan yahay inuu kormeero wax qabadka shaqaalaha muhiim waa fiiri yani performance-ga inuu yani oo performance-ga shaqaalaha inuu kormeer ku sameeyo yani shaqaalaha fiican keesi fiican u shaqeeya saacadaha ugu badan oo wax laga tan ninkee shaqaalaha jooga ya
ها shaqaalaha midkan ma Facebook iska fiirsadaa kan ma TikTok u fiirsadaa kan ma wax qabadka kaliya xooga saaraa shirkadu sidoo oo sales ku horumar lahayd yani meeshaas waa ina sanaysaa hadaad kormeer aad ku sameeyeen wax qabadka shaqaalaha wax oo hagaaga doonaa ma jiraan inuu ka faa'iideysto juhdiga ay bixiyaan suuqgeynta shirkadda يعني جهدي أي بحنايان رجع سوقين الشركة يعني ما أنت أردن بدأ عادي الشركة دول هذه ذات كسر على أنا أما سيرفيس الشركة دول هذا مركوا إنه أصلا يا وحلا يلاهدو كفائديس يعني إنه كفائديس ده وإنه توبره حبناها إيبك الشركة توبر إنه أصلا يسوع قف كسيلز مانجر كا وإنه توبر أصلا يا ذات إيبك كشقينا waxaa laga yaabaa kuwa cusub hadda ku soo biirinay jiraan waxaa laga yaabaa kuwa oo xoogaa wax ka dhimanay jiraan marka tababarsi diyaarinta moralka shaqaalaha yani dhiirigelin waa macnaha ina shaqaalaha aad baalkii u dhiirigeliso kii xoogaa liito dhiirigeliso kii fiican dhiirigeliso yani marba niyada u dhisto shaqaalaha ina la dagaasho lama rabo dadka hooseeya teamka oo ina baalkii ahay inay yani wax kula hormariyaan la rabo ina la dagaasho midalba qoorta isku gashaan lama rabo okay dabagalka macaamiisha lunta waajibaadka waxay kamid tahay sales manager-ka macaamiisha tusaale ahaan wax gada jirtay waxa laga yaabaa ajentelaan inay jiraan oo wax ka gata way ajentelasha maanta ayaanta u maqan yihiin oo wax ka gada waayeen waa ina dhahdaa waa ina samaysaa macaamiisha wax ka gada jirtay oo tafaariiqda ah sidoo kale waa ina raadisaa maxay wax ka gada waayeen ma waxay ka aadeen meel kale ma guureen ma tartama qaatay ma laga xudxutay waxaas oo dhan waa ina ka shaqeysaa marka waajibaadka ugu muhiimsan oo qofka sales manager-ka laga rabo intaan waaye insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iido doontaan fadlan noo share garee subscribe qofkii ku cusub tahay noo sameeyo waa mahadsantiin salaamu calaykum